qof kastoo Soomaali ah wuxuu maanta og yahay dawlad aan darisnahay oo dawladahan dariska nahay kamid ah in ay heshiis sharci darro ah inay la gashay dawlad goboleed ama dawlad goboleed kamida ama maamulada kamida Soomaaliya mid kamida oo ah Somaliland kaas oo sheegaya ama ay tibaaxaya in dal Soomaaliyeed qayb kamida in dawladdaasi ay si sharci darro ah inay leedahay waan qaadanayaa waa la iga kiraynayaa waan qaadanayaa ciidan baan degsanayaa dekad baan ka dhisanayaa anaana samaysanaya ayagoo og weliba in maamulkaasi uu ka tirsan yahay jamhuuriyadda Soomaaliya ayagoo og in dastuurka Soomaaliya uusan u ogolayn arrimaha noocaas oo kale ah inay maamuladu ay ayagu ka taliyaan oo ka arrimiyaan ayagoo og in dadka Soomaaliyeed ay muddo dheer ay ayaga laftooda ay challenge iyo dhibaato ay u soo dhaxaysay ayagoo og inay dadka Soomaaliyeed aynan aqbali doonin dawladda Soomaaliyeedna aysan aqbali doonin ayay arrintaas sameeyeen waxaanu geed walba geed dheer iyo geed gaaban u fuulay si nabada in ay saaxiibadeen uga laabtaan tallaabada sharci darrada ay qaadeen oo adduunka oo dhan la hadlay oo la kari laayahay oo loo sheegay waa sharci darro war waxaad u socotaan qaanuun kastuu khilaafsan yahay war waa gardarro laakiin ayaga ay wali diidan yihiin oo taliska Addis Ababa ay diidan yihiin waa la socotaan arrinta halka maraysa ee adduunyadii oo dhan Soomaaliya iyo adduunyadii oo dhan oo garab taagan iyo dawlad qaanuunkii caalamiga jabinaysa ay inay meesha isku hayaan iyadoo sheekadu halka marayso waxa nasiib darro ah inaynu si kala wax u akhrinayno haddaynu Soomaalina arrintaasi waxa u dhaxaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ma jiro qof Soomaaliya oo diyaar u ah ama raba dalkiisa inay dawlad kala qaadato ma doonayo qof raba ma jiro ma raba qof doonayo oo Soomaaliya ma jiro Soomaalidu guud ahaan waxay ka siman tahay dal jacaylka waxay ka siman yihiin waxa kale oo dhan uu kala qaybin karaa laakiin mas'alada dalka kuma kala qaybsamaan mana ku kala qaybsamaan waxaan rabnaa marka arrinta noocaasa dadka Soomaaliyeed u fahmaan arrintu waxay maraysaa Soomaali oo dalkeedii difaacanaysa oo aan gardarro rabin oo nabadgelyo rabta oo waliba cid walba la hoostagayso le war dawladdan lala hadlo iyo dawlad le maya waxaas waxba kama jiraan meeshaan gar iyo gardarraba waa inaad isiiso ama sidii aan u saxiixday baad iigu dayn ama xoog baaban ku imanba oo waan imanaya labadaas ay maraysaa inta wax ka sokeeyay oo Soomaali isjiidata ah oo Soomaali isfiirsata ah meeshaas boos kuma leh dadka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa inayna khadka ka dhumin kulligeen halkaas ay wax marayaan meeshaas aynu ka wada sibanahay kulligeen wax inaan hoosta soo gala oo ina kala qaybiya oo yiraahdo waxyaabo kala jira ma jiro dawlad kale oo ciidan keensanaysa Soomaaliya ma jirto dawladna weydiisatay oo dhahday ciidan baan keensanayaa Soomaaliya ma jirto sideedaba dama weydiisan laakiin xaq baan u leenahay haddaan Soomaali nahay wadan madax bannaan baan nahay haddaan dawlad kale u tagnay oo carbeed oo aan dhahnay iyagana warna caawiyo waxaad caawinaysaan oo ay dhaheen waan caawinaynaa micnaheedu ma aha inaan dawlad kale ku duulayna ma aha micnaheedu ma aha inaan ciidamo ay leeyihiin inta soo rarno Soomaaliya keenayna ma aha namay weydiisan annana ma weydiisan annagu waxaan u baahanahay taageero cidiina siinaysaan uga baahnay hadda iyaguna siinayaan saaxiibadan horeyba waa wax badan waan isla qabanay diyaar baan u nahay hana siiyaan laakiin in dadka la misleading lagu sameeyo oo dhinac kale dadka loo gediyo arrintaas waa nasiib darro dadka Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed ha ka xishoodaan inay isu jawaabaan ha ka xishoodaan in
lagu ciyaaro mabaadii waaweyn iyo arrimo khatar ah oo taagan in wax aan micno lahayn lagu ciyaaro oo dadka la dhex geliyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ka daayaan odayaasha Soomaaliyeed ka daayaan kala qaybinta bulshada Soomaaliyeed iyo iska horkeenka dadka hal la joojiyo hal laga waantoobo dadka Soomaaliyeed waa inay saf waaxid galaan hal saf galaan dalkooda wada difaacdaan waxay la tahay taas qof Soomaaliya oo ka soo horjeeda ma jiro meel kasta uu joogaba qof Soomaaliya oo diidanna ma jiro laakiin dadka markay si qaldan wax loogu akhriyo dadka Soomaaliyeed ee qabyaalada la dhex geliyo ee waxyaabo kale laga hadlo oo la istaataabto waxa inaga dhumaya meeshii aan u soconnay deedna waa fashilmi wala tanaazacu fatafshalu wa tadhhab riixukum haddii la khilaafo oo waxaan micno lahayn la isku wada khilaafo sidoo Ilaahay sheegay waad iskhilaaftaan oo inta meel aado marka ugu dambaysa fatafshalu waad fashilmaysaan Ilaahay awoodiinuna way tagaysaa khalaas baad noqon horay baan u soo maray 100 jeer baan iskhilaafnay 100 jeer baan soo fashilanay 100 jeer bay awoodeenu tagtay 100 jeer buu cadawguna qabsaday haddana ma ku sii wadaynaa ma la sii wadin waxa soo ma istaagto dadka Soomaaliyeed goormay qaan gaarayaan horta siyaasiga Soomaaliga goor muqaan gaaraya odayga Soomaaliyeed goor muqaan gaara goorma la qaan gaara ma marka adduunka la rogo dadka Soomaaliyeed waa in ay qaan gaaraan waa inay wax fahmaan waa inay wax ku hareeraysan fahmaan qof kasta oo kala qaybinaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo qabyaalad ku kala qaybinaya oo masaalix ku kala qaybinaya oo gobol ku kala qaybinaya oo deegaan ku kala qaybinaya qofkaasi waa cadow Soomaaliyeed waay cadow haddaan maqasho waa kaun qof kasta oo dadka Soomaaliyeed midaynaya oo isu keenaya oo waxay wada leeyihiin ka wada shaqaynaya oo dadka isu soo kaxaynaya oo walaalaynaya qofka waa qofka Soomaaliga ee xalaasha ee saxdaana waa kaas shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka inay kala bartaan waxaan ugu baaqayaa inay aqliyeystaan waxaan u baaqayaa in la isku dirin kuwa tarafka xuduudaha jooga iyo kuwa halkan jooga maanta oo xuduudda badda joogay dalka isku sibay u jecel yihiin isku sibay u leeyihiin waa isku mid isku dareen waaye marka waxa waaye inay ogaadaan dalkeeda meeshu maray dalkoodu iyo waxa ka taagan inay ogaadaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed kuwa xuduudaha ka baxsan iyo kuwa ku jiraba waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa deganaansho laakiin waxyaab markay joogto ay timaado dal markay timaado yani meeshaas waxa waaye waa khad ahmar waa khad casay noo tahay khad cad noo tahay waxaan mar kale ku baaqaynaa nabad iyo deganaansho iyo inaan la isgardaraysan